hadda wadankan Mareykanka dadka qaar baa saa sheegaysa yiraahdo bay'adii la xiriirtaa gaar ahaan markay ka hadlayaan bulshada Soomaalida oo kale waxay yiraahdaan dhul kulula ah bay ku noolaayeen dhul qabooba ah bay yimaadeen lack of vitamin D baa jirta waa in loo qoraa ama hooyada ama carruurta dhalatay vitamin D dadka qaar waxay yiraahdaan talaalka sababa arinta talaalka rabaa inaan wax ka weydiiyo adigu kulli inta aad ogtahay waa ogtahay bulsho badan ama idaacadan dhageysata ama Soomaaliya inay walaac ka qabaan talaalka nooca loo yaqaan MMR oo ay aaminsan yihiin dadka qaarkood ama ku turkeenta ah in talaalkaasi uu sababo dadna waxay leeyihiin may ilma aan la talaalin buu ku dhacay adiga inta hadda hawshan aad ku soo jirteen maxaad adigu ka ogaatay xanuunkan autismka ama maangaarka ma waxa sababa MMR-ka waa su'aal wanaagsan horta waxaan rabaa inaan dadweynaha la wadaago xagee ka timi arinka oranaya talaalka sababa MMR-ta sababta meesha asal ka soo bilaabantay baan rabaa waxay ka soo bilaabatay nin dhakhtar oo la yiraahdo Dr. Wakefield oo Ingiriis ah ayaa daraasad sameeyay daraasaddiibu wuxuu ku sheegay in curiyaha mercuryga la yiraahdo ee lagu daro dawadan MMR-ta talaalka lagu daro oo wuxuu samaynayaa wuxuu ka ilaalinayaa dawadu inay xumaato ama wuxuu ka ilaalinayaa macnaha dawadii in isbedel ku dhaco oo inta ay muddada jiritaankeeda u dheereeyo wax sababa noocaas waa loogu daraa marka wuxuu yiri bahalkaasaa sababa mercuryga sida daraadeed waa in MMR-ta la kala saarsaarayo irbad walba gaar loo saaraa ama aan carruurta laguba talaalin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا إذا عدى FM-ka ee KZYSLB ee laga dhageysto muujada 105.1 waa marka aad ka dhageysanaysid magaalada St. Cloud ee gobolkan Minnesota sidoo kale waxaad ka dhageysan kartaa barta Facebook-ga iyo dhinaca website-ka ee idaacadda oo isaguna ah kzyslbradio.com barnaamijkan haddii ilaahay idmo waa barnaamij aad u muhiima waxaanu kaga hadlaynaa arrimaha la xiriira autismka ama xanuunka maangaarka ah barnaamijkan maanta waxaa iigu marti ah oo nagala soo qayb galay Mahdi Warsame oo isagu ah maamulaha maareeyaha guud hay-adda loo yaqaano Somali Parents Autism Network oo isagu maanta nagu soo booqday halkan marka ugu horeysa aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa inaad nagu soo booqatid idaacadda KZYSLB studiogeeda bal marka koobaad wax yar waxaan rabaa haddii ilaahay barnaamijkaygan inaan uga hadalno xaaladda autismka ama maangaarka waxaad nooga warataa hay-adda Somali Parents Autism Network maxay tahay maxayse qabataa adoo ku bilaabayo warbixin kooban oo adiga ah Mahdi kusoo dhow walaal Axmed Laari waad mahadsan tahay adiga iyo idaacaddana waan salaamay idaacadda St. Cloud Somali Radio walaal hay-adda waxaa la yiraahdaa Somali Parents Autism Network waana hay-ad samafal oo ma garanaysaa ay asaaseen waalidiin Soomaaliyeed oo carruurtoodu autism qabto ama maangaar qabto waxaa la asaasay sanadkii 2014 bilowgii hore waxay ahayd hay-ad waalidiintu kaliya ay sameeyaan waxa afka qalaad lagu yiraahdo networking macnaha iskaashi iyo wada xiriir dhexdooda ah ay isu yimaadaan sanadkiiba mar shiraan macluumaad kala qaataan iswareystaan kala faa'iideystaan waalidiintu dhexdooda waalidiinta Soomaaliyeed oo ilmahoodu u qabo maangaarka ama autismka laakiin wixii laga bilaabo dabayaaqadii 2021 ilaa 2022 hay-addu waxay bilowday inay noqoto hay-ad fulisa adeegyada u fulisa waalidiinta Soomaaliyeed adeegyada waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan in waalidiinta loo sameeyo jihayn iyo tilmaamid meelihii ay ka heli lahaayeen adeegyada ay u baahan yihiin waxa loo yaqaan services and support yani meelaha caawimooyinka ka heli lahaayeen ama la tilmaamo ama la hago
in loo sameeyo waxa la yidhahdo garab istaag ama advocacyga waxa la yidhaahdo oo haddii dani meel kaga xidhanto warqad loo qoro loo raaco loo doodo iyo wixii lamida hay-addu waxay bixisaa tababaro fara badan oo autismka ku saabsan ama maangaarka ku saabsan oo loogu talagalay in wacyiga iyo aqoonta waalidiinta ilmahooda autismka qabaan kor loo soo qaado. hay-addu waxay kaloo samaysaa wacyigelin xagga autismka ama maangaarka ah. waxaanu tagnaa masaajidada, waxaanu tagnaa meelaha jaaliyadda soomaalidu isugu timaado ama shirarkooda, waxaanu tagnaa meelaha soomaalidu maaragtay saxaafadda soomaalida sida tan aan maanta joogno kale. waxaan sharaxnaa autism ama maangaar waxa uu yahay iyo sida uu jaaliyadda u saameeyey ama caruurta soomaaliyeed siduu u saameeyey. maxaa yeelay waa wax aad iyo aad u badan oo faraha ka baxay oo dadka soomaaliyeed inay ku baraarugaan u baahan. wacyigelintaana waa samaynaa. ugu dambayntii waxaanu samaynaa tababaro aad u fara badan oo ma garanaysaa autismka ku saabsan. tababaradaasi maxay yihiin? waa tababaro dhammaantood autismka ku saabsan loogu talagalay waalidka aqoontooda in kor loo soo qaado, waalidka caruurtooda autismka qabto. marka tababarka ugu horeeya waxaa la yihahdaa autism 101. autism muxuu yahay? waxaanu ka hadalnaa waxbarashada khaaska ah, special needs education. waxaanu ka hadalnaa maalan waiverka iyo meelahan adeegyada qaabka u shaqeeyo. waxaan waiverka la yidhaahda ee dadka naafada la siiyo. waxaan ka hadalnaa maaragtay guardianshipka waxa la yidhahdo ilmuhu markuu 18 jir gaaro ilmaha mas-uuliyaddiisa waalidku say ula soo wareegi lahaayeen. waxyaalaha noocaas oo dhan oo tababaro badan baa bixinaa. waxaan kaloo tababar siinaa hay-adaha soomaalida u adeega oo waxaan bixinaa maaragtay tababar la yidhaahdo Somali Culture 101 oo macnihiisu yahay guide to service providers, oo macnihiisu yahay in la isfahansiiyo maaragtay dadka adeeganaya ee soomaalida iyo maaragtay hay-adaha u adeegaya xagga dhaqanka iyo luuqadda inay isfahmaan. marka cultural competence yani tababar xagga dhaqanka soomaalida aban hay-adaha adeegyada bixiya baan u samaynaa. marka arrimahaasaa ugu muhiimsan. dee waxyaalo badan baan qabanaa laakiin inta ugu muhiimsan waa intaas. waayahay waxaanu ka hadlayno ama hay-adiinu ay qabataan waa autismka ama oo hadda dad badan loogu eray bixiyey ama macno ahaan loogu turjumay soomaaliga maangaar, inkastoo ereyga naftigiisa uu yahay erey cusub. dad badan waxay isweydiiyaan mararka qaarkood xanuunkan ama calaamadahan caruurta lagu arko wax hore u jiri jiray waddankayagii ma yihiin. aan ku weydiiyo maangaarka ama autismka sidiisaba muxuu yahay, maxaase loogu macnayn karaa qofka soomaaliga autismka inuu yahay? walaal waa su-aal aada u muhiima. waana su-aal runtii uu ka taagan yahay dood fara badan iyo isfahan la-aan fara badani ay ka jirto. horta marka hore marna waa waxa dadku ay iyagu isugu sheekaynayaan oo marka laga hadlaya maangaarka ama autismka waxa dadku ay ku dhex faafay. marna waa waxa marka loola noqdo waxa loo yaqaano yani scientifica ama cilmiga sayniska ama aqoonta dee maadiga ah in loola noqdo. marka anugu de waxaan ka hadli karaa waxa dadku ay sheegsheegaan maadaamaanu hay-ad samafal nahay dadkana inaan runta u sheegna ay tahay. aniga waxaan ka hadlayaa sida scientificale ama cilmiyan waxa uu yahay. horta autism magaciisa scientifica waxaa la yidhaahdaa autism spectrum disorder oo macnaheedu yahay autism waa magaciisa. spectrumna waxa weeye wax noocyo badan ka kooban oo siyaalo kala duwan yani u soo shacbaxa waan hal nooc ahayn. spectrum disorderna waxaa la yidhaahdaa yani isku dhexyaac ama maskaxdii qofka maskaxdiisii oo sidii loogu talagalay khalkhal ku jiro oo sidii loogu talagalay aanu shaqaynayn. macnaha waxa loo yaqaano neuroska ama signalada ama tilmaamaha maskaxdu bixiso ayaa ka duwan. marka dadkii qaarna waa neurotypical oo maskaxdoodii caadi bay u shaqaynaysaa sidii loogu talagalay oo koritaankeedii baa dhammaystiran. qaarna waxbaa ka siiya oo waxaa la yidhaahdaa maaragtay waa autistic ama autism bay qabaan ama maangaar bay qabaan. autismka marka la macnaynayo waxaa la yidhaahdaa pervasive neurodevelopmental disorder.
pervasive maxaa loo leeyahay pervasive waxaa la yidhahdaa wax qofka dhinac walba ka saameynaya wuxuu dhinacii bulshadu kaa saameynaya dhinacii fakarka iyo maskaxdu kaa saameynaya dhinacii jidhku hadduu doono kaa saameynaya siyaalo badan oo kala duwan buu qofkii u saameynaya oo dhammaystiran buu ku saameynaya neurodevelopmentalna waxaa loo yiri neuro waa maskaxda arrintan markii dhowta ka hadlayay yani waxa ay bixiso signalada ama tilmaamaha ama maaragtay dareemayaasha maskaxdu say u wada shaqeeyaan waa neuros la yidhahdo developmentalna waxa weeye waa koritaanka disorderna waxa weeye aan isla shaqay sidii la rabay isula shaqaynayn oo khalkhal ku jiro marka waa koritaan kii qofka bini'aadanka sidii ilaahay u abuuray qofku marka hore horta wuxuu dhalanayaa sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay isagoo aan waxba garanayn يعني إلهي وحكت بحيري والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلهي يعني ururkii hooyooyinkii wuxuu idinka soo saaray idinkoon waxba garanayn marka wax kastuu qofku yaqaano marka ugu horeyso ilmuhu dhasho laga bilaabo ilaa intuu ka weynaanayo marba koritaanka waxbaa u kordhaya mar wuxuu baranayaa maaragtay xubnihiisa jirka inuu isticmaalo inuu isrogo inuu fadhiisto inuu beerka ku socdo inuu gurguurto inuu istaago inuu socdo inuu hadlo waxaasoo dhan waa nooc koritaanada ka mida marka qofka koritaanadii maadaama maskaxdiisii aysan sidii la rabay u shaqaynayn koritaamadii qofka ilaahay ugu talagalay baa qaarkood ka soo daahayaan ama dhammaantood baa ka soo daahaya sidaa daraaddeed qofba meel buu ka saamaynaya qof buu hadalka ka saamaynaya qof buu xagga feejignaanta iyo attentionka waxa la yidhaahdo ka saamaynaya qof buu wuxuu ka samaynayaa maaragtay xagga fakarka iyo garaadku qof ka saamaynaya qof buu intoo dhanba ka saamaynaya marka waxa weeye waa isku dhexyaac iyo khalqal xagga koritaanka awey marka dadku Soomaalidu waxay u yaqaaneen inuu cudur yahay laakiin cudur maaha waayo cudur markaa tiraadid waxa weeye wax qofka mar ku dhacay kana baxay ba cudur la yiraahdaa sida مثلا qofka in hargab kugu dhaco kale ama in TB kugu dhacdo kale ama in kanaaca iyo jadeeca kugu dhacdo kale waa cudur waa waxa mar kugu dhacay aadna ka ladnaan kartid laakiin isagu waa maxay isagu waa waxaad ku dhalatay oo maartay waa neurodevelopmental disability yani waa wax ku jira koritaankaagii saameeyay ee ma cudur kugu dhacay mar ma waayahay gobolkan Minnesota hadda waxaa ku dhaqan dad badan oo ay ka mid yihiin Soomaali ama guud ahaan wadankan Mareykanka sidoo kale wadamo badan oo Yurubta ah Soomaali badan oo ku dhaqan waxaa ku badan autismka ama maangaarka dad badan baa waxay isweydiinayaan bulshadeena kamida gaar ahaan hadda ku idaacada dhageysanaya maxaa sababay muxuu yahay keenay waana ogtahay hadda wadankan Mareykanka naftigiisa ilaa maamulka hadda jooga oo aad la isu weydiinayo oo shakhsiga ugu sareeya caafimaadka oo kale hadda iyo wadanka Mareykanka oo dhan aad loo hadalayo inta adigu aad ku ogtahay ama hay'adiinan ama aad muddo ku dhex jirtay hawshan maxaa la leeyahay maxaa keenay ama maxaa sababa autismka ama maangaarka walaal horta waxaan rabaa inaan mar labaad wixii cilmi iyo science iyo aqoon baynu ula noqonaynaa bilaadanka ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qofku aqoontu marba heer bay maraysaa hadda cilmiga sayniska oo kale marba heer buu maray waxaa jiray xilli autismku xataa magac uusan lahayn xataa wuxuu yahay aan la garanayn inta badan aqoonta ku saabsan autismka iyo cilmi baaristiisu waxay xoogaysatay ilaa 20 sano u dambeeyay wixii sanadadii horaantii 90aadkii iyo wixii ka dambeeyay laakiin sida xaqiiqadu tahay autism weligii waa jiray oo calaamadahan hadda aynu naqaano ee dadka qofka maangaarka lagu garto ama autismka lagu garto weligood way jireen dad calaamadaha leh ama sida qaabkaasi ama xaaladaasi weligood way jireen laakiin aqoon badan looma lahayn nasiib darrada dhacday marka waxay tahay mar haddii aan aqoon loo lahayn oo aan si fiican dadka loogu qeexin
dadkii qofba meel buu la aaday. Waxaa sababa dad baa waxay ku oranayaan waxaa sababa bay'ada sababta, dad baa ku oranaya irbadahan talaalka sababa, qaar baa waxaa la oranayaa maaragtay cuntooyinkan aynu cunayna iyo kiimikooyinkan lagu darayo iyo process foodska waxa la yiraahdo cuntadan la warshadeeyay baa sababta, qaar baa waxay oranayaan waxaa irbadaha hooyooyinka lagu dhufto ama daawooyinka hooyooyinka la siiyo markay uurka leeyihiin baa sababa, qaar baa waxay oranayaan waxaa sababa maaragtay waa genetic oo waalidiintaadii horaad ka soo dhaxashay. intaasoo dhan marka la sugeeyo mid caddayn cad loo hayaa ma jirto. xaqiiqada dhabtahay waxay tahay autismka waxa sababa lama yaqaan, laakiin daraasad iyo baadhis iyo cilmi baadhis baa ku socota. cilmi baadhistaasina haddeer waxay maraysaa meel bilow ah, laakiin meel conclusive ah oo yacnii la oran karo waa la soo dhammaystiray ama meel bay fadhidaa ma gaarsiisna aqoontaasi. laakiin culimmada sayniska ama cilmi baarayaashu iyo jaamacadaha iyo aqoon-yahanadu way ku mashquulsan yihiin inay fahmaan. laakiin waxaa jira waxyaalo laga shakisan yahay. waxyaalaha laga shakisan yahay laba waxbaa ugu xoog badan. midi waxa weeye xagga geneticska waxa la yidhahda xagga hiddaha, oo dad waxaa jira faamiliyo gaar ahoo ay ku badan yihiin ayaa jira. marka shaki weeye maaha caddayn in loo hayo maaha. waxaa kaloo jira shaki oranaya bay'ada dadku meeshii ay ku soo noolaan jireen ama degaanadii ay ka yimaadeen wax la xidhiidha inay tahay, laakiin ma aha daraasad dhammaystiran oo aqoon cidi caddaynu hayso, lama caddayn. sideedana marka cilmi baadhis la samaynayo waxaan rabaa axmed laariow inaan kuu sheego waxaa jira laba wax oo midna la yiraahdo correlation midna la yiraahdo causation ma afka qalaad lagu yiraahdo. markaad cilmi baadhis marka aad samaynaysid marka hore waxaad raadinaysaa labada wax xiriirka ka dhaxeeya. marka correlation baa la yiraahdaa. maalan haddii aad masjidka markaad tagtid salaada casar, maalin walba salaada casar markaad masjidka tagtid haddaa xanuunsatid, macnaheedu waxa weeye waxaad isku xidhaysaa xanuunkaagii iyo saacadda aad masjidka tagtay, waa correlation. laakiin taas keligeed wax laguma dhisi karo, waa in la helaa wax la yidhahdo causation. causation waa maxay? waxa weeye waa in la baaraa inay waxaan iyagu isa sababaan, yacni xanuunkaaga iyo masjidka aad tegaysid inuu ka dhaxeeyo in iyagu midba midka kala sababayo. soo ma dhici karto galab walba casarkii wakhtigaas meel kastood joogi lahayd inaad xanuunsan lahayd, soo ma dhici karto. ilaan masjidkaad joogtaa macnaheedu maaha, laakiin masjidku inuu sababayo. ma dhici karta casar wakhtigaa inaad adigu maalin walba xanuunsan lahayd meel kastood joogtid. marka dad baa waxay kuu sheegayaan waxyaala ay arkeen. maalan waxaa qof baa wuxuu ku oranayaa ilmahayga markii la tallaalay kadib baan xanuunkan ku arkay. okay, waa correlation wey, xidhiidh baa waxaad dareemaysaa in xidhiidh ka dhexeeyo, laakiin miyay isa sababayaan? waa in la sameeya wax la yidhahdo elimination process dheer weeye, oo macnaha muddo dheer baa wixii ilaa la helo causationka waxa sababaya ama waxaan waxa keenay oo sababtii la helo. xidhiidh baa ka dhexeeya keligeed waxba ma sheegayso, daraasad dhammaystiran maaha. marka lama oran karo waxaasaa sababa. sidaa daraaddeed jawaabta markaan soo koobo waxa weeye autismka waxa sababa lama yaqaan, laakiin baadhis baa socota. baadhistaasi waxaa laga yaabaa inay muddo dheer qaadato. markii ay meel fadhiisatana dadweynaha waa lala wadaagayaa insha allah. waayahay, sidaa hadda sheegaysidba waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo. meelo kala duwan ayaa lala aadaa hadda waddankan Maraykanka. dadka qaar baa saa sheegaysa yidhahda bay'aday la xiriirtaa, gaar ahaan markay ka hadlayaan bulshada Soomaalida oo kale waxay yidhahdaan dhul kuloola ah bay ku noolaayeen, dhul qabooba ah bay yimaadeen, lack of vitamin D baa jirta, waa in loo qoraa ama hooyada ama carruurta dhalatay vitamin D. dadka qaar waxay yidhahdaan tallaalkaa sababa. arrinta tallaalkaa rabaa inaan wax kaa weydiiyo. adigu kolley inta aad ogtahay waa ogtahay bulsho badan ama idaacaddan dhegaysata ama Soomaaliya inay walaac ka qabaan tallaalka nooca loo yaqaana MMR oo ay aaminsan yihiin dadka qaarkood ama kuturkeenta ah in tallaalkaasi uu sababo. dadna waxay leeyihiin may ilmo aan la tallaalin buuba ku dhacay. adiga inta hadda hawshan aad ku soo jirteen maxaad adigu ka ogaatay xanuunkan autismka ama maangaarka ah ma waxaa sababa MMR-ka? waa su-aal wanaagsan. horta waxaan rabaa inaan dadweynaha la wadaago xaggay ka timi arrinka oranaya tallaalkaa sababa MMR-taa sababta, meeshay asal ka soo bilaabantay baan rabaa.
waxay ka soo bilaabatay nin dhakhtara oo la yiraahdo Dr. Wakefield oo Ingiriis ah ayaa daraasad sameeyey. Daraasadiibu wuxuu ku sheegay in curiyaha mercuryga la yiraahdo ee lagu daro dawadan MMR talaalka lagu daro oo wuxuu samaynayaa wuxuu ka ilaalinayaa dawadu inay xumaato ama wuxuu ka ilaalinayaa macnaha dawadii in isbedel ku dhaco oo inta ay muddada jiritaankeeda u dheereeyo wax noocaasa sababa noocaasa waa loogu daraa. Marka wuxuu yiri bahalkaasaa sababa mercuryga, sidaa daraaddeed waa in MMR la kala saarsaaraayo irbad walba gaar loo saaraa ama aan carruurta laguba tallaalin. Arrintaasi waxay keentay dhibaato fara badan oo haddana runteedii dib laga ogaaday. Waxay keentay dad badan inay diidaan tallaalka oo carruurtoodii aanay tallaalin. laakiin markii arrintii la baaray oo cilmi baadhistiisiiba cilmi baadhis kale lagu sameeyey ila cilmi baadhistu waxay leedahay shuruudo iyo wax la yiraahdo ethics yani wada loo maray leedahay cilmi baadhistu. marka Dr. Wakefield cilmi baadhistiisii waxaa la soo ogaaday debunking wax la yiraahdo lagu sameeyey. waxaa la yiri cilmi baadhis sax ma ahayn. wadadu u maray iyo qaabka uu cilmi baadhista u sameeyay marka loo eego qaabka saxda ah ee cilmi baadhista loo sameeyo ama daraasaadka loo sameeyo ma uu sameyn mana u marin. sidaa daraaddeed waxaan u sheegay ama conclusionkan go'aankan uu gaadhay oo leeyahay waxaa sababa tallaalka waxba kama jiraan. xataa waxaa la gaadhsiiyey heer isaga laysankii laga qaado oo la yiraahdo waxaa tahay nin qayru mas-uul ah tahay maadaama dadkii wax aan sugnayn aad dadkii u sheegtay. waaya waxaan kaloo ku dari lahaa laba arrimood. marka hore MMR isagu muxuu cilad ka dhigay? wuxuu ka dhigay mercury curyaha la yiraahdaa ku jira. curyaha mercurygu cuntooyinkan in cunaba uu ku jira gaar ahaan kalluunka. waliba kalluunka waxaa ku jira curyaha mercuryga ee ugu badan ee suurtagala ku jira. inta irbada ku jirta in aad uga badan baa ku jirta. arrinka labaad ee rabaa dadka in la wadaago waxa weeye waxaa la hayaa caruur aan laba tallaalin sida adiguba aad sheegaysay oo haddana maangaar ah ama autism ku dhacay. sidaa daraaddeed aniga nin dadka liidariska ama hogaamiyayaasha Soomaalida ee gobolkan ka mid ah baa wuxuu igu yiri oo naftiisa isagu ii sheegay. wuxuu igu yiri 3 wiil oo aan dhalay 2 waan tallaalay midna ma tallaalin. wuxuu yiri 2dii aan tallaalay way bad qabaan autism iyo maangaar ma qabaan. kii aan tallaalin ayaa maangaar ah. sidaa daraaddeed halkaa waxay ku tusaysaa macnaha inayba tahay caddayn cad oo inuusan isagu keenin. waayo hadduu isagu keeno ilmahan muxuu maangaar u noqday ilmahan aan laba tallaalin? taasi waa qodob. waxaan kaloo ku darayaa dad waxaa jira sheegay ilmahooda isagoo ilmihii xumadaysan yahay ama xanuun hayo in la tallaalay oo irbado badan hal mar lagu dhuftay 6 irbadood oo kale ama 6 tallaal ama 5 tallaal mar lagu dhuftay dadna ilmihii meesha ku dhacay oo xanuunsaday. arrintaas dad badan oo waalidiin badan baa arrinkaas sheegay. waana arrin aanu anagu jaamacada xataa waxaanu la kulanay haddaanu Spain jaamacadan la yiraahdo University of Minnesota oo daraasaadka samaysa ama cilmi baadhista samaysa autismka iyo CDC-da iyo waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota MDH la yiraahdo Minnesota Department of Health. waxaanu ku nidhi arrintan baara marka dee wixii Soomaali uma gaar aha. marka caruurta haddii ilmuhu xanuunsan yahay ama uu xumadaysan yahay yaa la tallaalin maadaama aad loo sheegayo arrinkaa in caruurta lagu arkay yaa la tallaalin. haddii irbadaha la kala fogfogeyn karana tallaaladana hala sameeyo. laakiin ilmaha annagu waxaan waalidka kula talinaa ilmaha hala tallaalo. talaalkan ayaan laga cararin. waxna kama jiraan warkan oranaya talaal baa sababa maya waxba kama jiraan ma niraahno. laakiin waxaan niraahnaa caddayn looma hayo. dadkan haddaan wixii caddayn loo hayn dee macnaheedu waxa weeye waa jiraan kuma oran karno. marka intaasaan kusoo koobaya aadna waad mahadsan. waayahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa. waxyaalaha hadda ka sharqamisay waxaa ka mid a hay-addiina Spain inaad tagteen meelo ama jaamacado daraasado sameeya. hadda jaamacadan ku taalla magaalada St. Cloud State University waxaa ka socday in dhaweyd kulamo
lagaga hadlayay autismka adigu sidaad sheegtay waxaad ka mid ahay dadkii ka soo qayb galay annaga naftigan idaacadaha waa nala soo xiriireen iyagoo raba marka bulshada in wararkan arrimaha la gaarsiiyo maxaa nala wadaagi kartaa macnaheedu barnaamijka ka socda jaamacadda St. Cloud State University oo wadaan qaar waxaan malaynayaa professorada ama ka dhiga in arrimaha wax lagaga ogaado maxaad ka ogaataa adeegkaas wallahi iyagu Mangaar project bay ugu yeedheen jaamacadda ayaana waday annaga nalaga tashaday ma ahayn laakiin waxay nagu casumeen maalin 22 bishii hore ayay maalin nagu casumeen inaan ka samayno presentation ama muxaadaro meesha aan ka hadalno oo waalidiin Soomaaliyeed bay isugu yeedheen marka waa arrin isugu jirta xagna ka cilmi baaris ah xagna ka wacyigelina oo public awareness wacyigelina marka annaga qaybta waxay naga qaybgeliyeen qaybta wacyigelinta marka waxaan samaynay aniga meesha tagay waalidiin Soomaaliyeed baa la soo ururiyay oo ilmahoodu ay maangaar yihiin ama autism yihiin kadibna waalidiintii baan la hadalnay waxaan kala hadalnay barnaamij wacyigelina oo had iyo goor aan samayno oo ah maangaarka iyo sida uu bulshada Soomaaliyeed u sameeyay iyo waxyaalaha la gudboon waalidiintu inay sameeyaan ama talooyin aan waalidiinta la wadaagaynay oo ilmahoodan say ula tacaalayaan meelaha caawimooyinka ka raadsanayaan iyo su'aalaha la rabo waalidiintu inay isweydiiyaan ayaan ka hadalay qaybta uun baan anagu ku lahayn qaybta wacyigelinta laakiin daraasadda waxaanu la shaqaynaa meel la yiraahdo Institute of Community Integration ama ICI oo jaamacadda weyn University of Minnesota ay leedahay ayaanu xiriir la leenahay daraasad badan oo horena daraasadna waa wada sameynay kuwa kalena way soo socdaan waan wada sameynayna marka iyagaanu aad ula shaqaynaa laakiin qoladan St. Cloud maalinta kaliya un bay ahayd ma garanaysa wada shaqayn kale oo badan oo inala wadaageen ama daraasad ay naga qayb galiyeen ma jirto laakiin qoladaas oo iyaga ka muhiimsan oo aad uga weyn ugana daraasad badan daraasadooduna ay la CDC-du ay isticmaasho oo daraasad weyna kuwaas aan la shaqaynaa waayahay waxaa tiri hadaayay autismka ama maangaarka ma aha xanuun ama cudur waa wax dad ku dhaca dawo loo helo qofkana laga daweeyo marka su'aasha meesha ka soo baxaysa marka waxay tahay autismka waalidiin badan ay isweydiiyaan daawo ma leeyahay hadduu daawo leeyahay maxaa lagu daweeyaa hadduusan daawo lahayna see loola tacaalaa oo ilmaha loo caawiyaa inuu noqdo ilmo la falgeli kara caruurta kale bulshada iyo xagga waxbarashadaba horta marka la leeyahay xanuun maaha cudur maaha waxaa jira wax la yiraahdo cudur iyo xanuun way kala duwan yihiin cudur waxa la yiraahdaa qofka wax ku dhacay kana baxay ama hadduu doono yuuba ka bixina xilli ku dhacay oo calaamo wax gaar ah la yaqaan qofku haddii xanuun kugu dhaco hadeer xanuunku wax walba ma mesela waxa loo leeyahay qofkaas macaan buu qabaa waa macaan waa xanuun gaar ama waa cudur gaar ah waxa la oranayaa qofkaas wuxuu qabaa dhiig kar buu qabaa marka saasaa laga wada laakiin lagama wado qofka wax kama khaldamin ama ma xanuunsana lagama wado oo macnaha yani marka la fasirayo waxaa la yiraahdaa waa condition waa xaalad iyo cudurna way kala duwan yihiin marka waa xaalad xagga dawada marka lama oran karo dawo male horta daawo leeyahayna lama oran karo sababtana waa macnaynaya daawo leeyahay lama oran karo oo dawadii aynu naqaanay ama kiniiniga ahayd ama irbadda ahayd inta qofka la siiyo oo ka caafimaadayo baynu deenagu daawo taasaynu u naqaanaa ma ogtahay marka dee daawo male haddii dhinaca laga eego laakiin dhinaca kale lama oran karo waxba lagama qaban karo waa kale laba in la yidhahdo dawo male iyo waxba lagama qaban karo yacni wax waa laga qaban karaa laakiin dawo male dawo la siinayaa qofka ma jirto weeye macnihi laakiin wax waa laga qaban karaa maxaa laga qaban karaa weeye